raba inaan inii sheego saaka inaanu shir isugu nimi tira 17 ah murashaxiin oo ah xafiisyada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka doorashada soo socota oo insha Allah u dhici doonta 8 January sanadka 2014 asmada anaga u filinay ay ku jirto qado si fiican baan u soo dhaweynay markay noo yimaadeen si wanaagsan oo niyad sameeyna waa ula hadalay markii aan fariisanay xafiiska madaxtooyada murashaxiinta waxaa markii aanu si fiican u soo dhaweynay ka bacdi oo hadlay General Abdullahi Saciid Samantar oo gudoomiye u ahaa hadalka uu furay dabadeedna ajeendadii programkii ku yimaadeen waxa uu akhriyay murashax Cali Xaaji Warsame wuxuu ka koobnaa 4 qodob in si wada jira loo wada magacaabo guddiga hadda shaqeynaya oo guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka xildhibaanada beelaha iyo deegaamada laga soo xulay in la magacaabo guddi ismada ku midaysan yihiin oo marjaca in la aqbalo goobjoogayaal caalamiya oo kuwa gudaha iyo dibaddaba marka ay doorashadu dhacayso iyo in la sameeyo terms of reference loo sameeyo ama waxa la yiraahdo hawlshoodu waxay tahay say u qabanayaan guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka iyo guddiga ismada arrinta markay soo jeediyeen waan uga jawaabnay waxaan aqbalay 4 qodob 3 kamid ah inkastoo mid aan uga hadalay sidii caadada ahaan jiray sida hadda iyagu soo jeediyeen uusan ahayn oo guddiga ismada markastoo doorasho ka dhacayso halkan ismadu nimanka beelahooda iyo deegaamadooda magacyada laga soo xulay oo odayaasha aqalada ka hooseeya ay soo xuleen ansixiya soo saxiixa markasta iyagu aan cidina u yeeran iyagu iskood u yimaado bay joogi jireen doorashooyinka ka horeeyay labada ahay aan ka qayb galay labadaba iyaga joogay oo yimi iyagoo odayaashii dadka oo hadii wax looga baahdo marjic noqon kara marka lama dhex galo laakiin iyaga un baa iscilqaama baan u sheegnay tafaasiisha xogaalnimada anagu aan hore u naqinay guddiga goobjoogayaasha caalamigaana horaan baa u codsanay oo wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay laftiisa ka codsanay inuu noo yimaado hadduu yimaadona beesha caalamka madaxdeeda kale oo Soomaaliya daneeya ama United Nations ka ahadeen dowladaha safiiradooda intii imaan karta waa inay yimaadaan iyo interpeace oo democratic process kan geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland qayb weyn ka soo qaadatay welina markii doorashada dhacdo dib loo bilaabi doono hadii alla idmo kala shaqeynaysay dowladda Puntland iyadana ay imaan doonto waa aqbalay terms of reference ga sagana waa aqbalay wax loo baahan yahay weeye inaan aqbalno laakiin magacaabida guddiga ansixinta iyo haddii khilaaf jiro khilaafaadka dhaqan ahaan sharci dowladda iskale doorashada afraad way 3 doorasho hore dowladdii markaa joogay magacaabay waxay ku andacoonayeen doorashadii tan ka horeysay oo murashaxiinta aanu kamid ahaa in 3 qof nala siiyay arrintaas ma jirto anaga ku dacwoonay laakiin waana la ka diiday dabadna waxaan aqbalay sidii dowladdu u magacawday iyadoo dowladdu tixraacayso tii ka horeysay oo iyaduna 2004 iyo tii ka horeysay 1998 waa arrin sharci ah oo xukuumadda joogta maanta iyo tii ka horeysay ay sameeyeen ma aha in doorashooyinka kale ay sameeyeen tii xamar xataa anaga sameeynay anaga magacawnay guddiga maanta aanu magacawnayna waa guddi mujtamaca Puntland oo dhan ku qalacsan yahay odayaala ku yar wasiirada ku jiray agaasimayaal baa ku jiray hadda cid shaqaale anaga noo ay kuma jirto guddiga 7 qof oo cod kale marka inay saa aqbalaan baan ka codsanay rag hore joogi jiray baa jiray arrintaas waxaanu ku kordhinay anagu in la sameeyo xeerka anshaxa murashaxiinta oo afka qaraad loo yaqaan code of conduct isagana in lagu daro 3 qodob aan aqbalay
iyo qodobkaas afartaa qodob kaana ay ka haraan muddo hadalla haddii la isdhaafdhaafsaday waxyaala iska dhacdhacay hadda halka aan ka sheegayno ragga qaarkiis aan hore u aqoon jirin dhulkan amle aan hore u imaan jirin ay ku hadleen waa jiray laakiin annaga waxba ka tixraaci mayno way diideen inay wax ka bedelaan ama aqbalaan intii aan aqbalnay annagu wax badan baan shirar ka qayb gallay aqoon ahaanna waa u leenahay cilmiyan waayo aragnimo waa u leenahay inaanu negotiation gallo cid waxayna ka dhaxeeyaan ama caalami ha ahaato ama dad gudaha ha ahaatee bal horta wixii laysku aqbalsan yahay oo laysla aqbalaa la qaataa wixii laysku diidana markaas waxaas isla mari weyna halkaasa la yidhahda nasiib darro walaalahay saaxiibaday qaar ay ku jiraan rag doonaya inay xilkan qabtaan ay ku jiraan waxay diideen inay dhaafaan qodobkaas hore inay diidaan oo wixii anagu aan aqbalay iyo wixii aan ku daray inay aqbalaan waa diideen waxay kaloo diideen arrin dhaqanka soomaalida aada ugu xun oo laysugu gebyi jiray oo ahayd inaanu qada sharaf ku samayna maanta halkan madaxtooyada haddaan isku qaabilay xafiiska gurigayga oo madaxtooyada ku yaala guriga madaxweynaha inaan qada sharaf ku samaynay meelyadana aanu ku talagalnay inay intay shir u fariisteen ay yidhahdeen aqlabiyadeedii waa diiday laba nin bay noo soo direen cabdullaahi siciid iyo cali xaaji warsame aqlabiyaddii waa diiday marka waa ka tagnay arrintaasuna dee waxaanu sheegaynaa ummadda reer puntland in dhaqanka hadday saas ahaan jirday iyagaan u dhaafaynaa way ogaan haka gaarin haka hadleen haka soo jeediyeen wax ka xumaanaya puntland ma jiraan nidaamkii sharciga ahaa oo la mari jiray baa la marayaa ammaankuna waa sugan yahay shaqadiina waa socotaa guddiga muxuu ansixinta baarlamaanka iyo khilaafaadka hadday jiraan madaxdii dhaqameedka waa joogaan inta maqanna waa imaan doontaa sidii hawsha ku socon jirtay bay ku soconaysaa waxaan rajaynaynaa ciddii ay ka dhab tahay inay murashax tahay oo xafiiska u tartamaysa labada xafiis u tartamaysa inay dib isugu noqdaano iyaga is yaqaanin waxay ka tahay murashax dhaba iyo wixii khashashaad meesha ugu jira annagu laftiga waa kala naqaana iyaguna waa kala yaqaanin ay qaataan wixii aan u jeednay iyo wixii aan aqbalnay inay qaataan baan rajaynaynaa dalka reer puntland dadka deganna hadday mararka ka ahaadeen waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu madaxweyne waxay ku baaqeen musharaxiintu in ay helaan dhexdhexaadin in la karo haddii aad isqabateen oo iyagana ay shirki ka kaceen maxay yihiin tallaabada labaada loo gudbaya maxaa la isku dhexdhexaadinayaa afar qodob midna sharci baanu leenahay kaayaga dhexdhexaad lagama geli karo saddexdii kalena waa ka aqbalay mid afraadna waa ku daray maxaa la iska dhexdhexaadinaya ninka waxaan maqli jiray hashu hadday maqaarka diidayso daldalool bay ka daydaa marka daldalool ma jiro meesha musharaxiintu waxay sheegeen inay hayaan dukumenti caddaynaya inaad ogolaatay 3 qof 2009 in musharaxiintu ay qaataan cid noo soo ogolaatay ma jirto cid noo ogolaatay ma jirto waa la diiday annagaa codsanay dabadeedna markii la diiday annaga waxaan aqbalay sidii dowladda markaa joogtay ay soo jeedisay iyadoo tix raacaysa kuwii iyaga ka horreeyey annagu kuwii xamar xataa annagaa qoray vetting committeegii xamar 4 qof oo aaday annagaa qoray oo xildhibaanada maanta xamar fadhiya golaha baarlamaanka xamar fadhiya hataa annagaa qoray wax khilaaf waleed kama imaan marka ciddii maanta diidan wixii annagu sharci aan u leenahay oo dowladnimada sharci ugu leenahay annagaa maanta xafiiska jooga annagaana hawsha hayna oo iyagoo magaalada ka yimi dhahaya annagaa la sheer garayna dee meel ku qoranta adduunka ma jirto raalli bay ahaanayaan mahadsan muddo kooban ay harsan tahay waqtigii doorashada la geli lahaa xiliyadan oo kalena waqtiyada hore ee doorasho ku dhici jiray marka loo eego wax badan baa diyaarsanaan jiray iminkana wax badan baa qabyo ah oo musharaxiinta laftooda dhinac bay u dudayaan xalku muxuu noqonayaa waqti wanaag ugu kooban sidaan hadda ay tahay waxba kama horreyn jirin baarlamaanka rasmiyan wuxuu fariisanayaa 1 January ayuu fariisanayaa maanta waxa 13 beri baa haray waxaan u qabanay bisha 10keedii qolada guddiga ansixintuna iyaguna time table bay samaysteen waxaan aaminsanay wax walba inay sidii xaq ah ay ku dhamaanayaan insha Allah taala